madaxweyne doorkan adiga dalkeeniyo lagu doortay qarankee Puntland daadeeyo hadaayicin xilkee guudo madaxweyne doorkan adiga dalkeeniyo lagu doortay qarankee Puntland daadeeyo hadaayicin xilkee guudo inaad daacad noqoto isku duubnidaaniyo danta guud ka talisa dadku ka sugayaan soo jeedin doonaan khudbado qaybta xigta waxay inoo noqon doontaa casho sharaf aan ugu talagalnay martida sharafta leh qaybta saddexaad waxay inoo noqon doontaa dhankii madadaalada iyo dhankii muusiga ee caawa marti inoogu tahay fanaanada codka dahabiga waa Lucky Xaaji Wacays الحمد لله هدي laga hadlayo waxa qabad waxa lagu qiyaasayaa hadba qofku meeshuu ka qaaday iyo meeshuu geeyay marka Puntland hadda dheeraano maxay ahayd Cabdiraxmaan Faroole iyo hadda marka la eego tagitaanka tagay oo garanaysaa inta marka uu gooyo mayl haddaynu ka eegno xagga amniga Puntland markii uu yimi nabadgelyo way iska jirtay laakiin ciidan dhisan ma dhaxlin waxa loo yahay ciidan mushaar la siiyay ma jirin gobolada qaar baa markaa gacanta ka baxay wuxuu yimi meel mustaqbalkeeda oo dhan ay tahay uncertainty ay badan tahay aan la hubin waxay noqon doonto xaqiiqatan markii uu qabtay macnaha dadku aad bay ula yaabanayeen leanna Cabdullaahi oo heavyweight ahaayo ayaa meesha ka baxay oo weliba Ethiopia ay ciloobeen marka cilaaqaadka xagga dawladaha dariska ah iyo xataa aad baa looga walwalsanaa markii uu yimi markii guuleystay dawladda Ethiopia cilaaqaadkeedu soo celiyo isla markiiba wuxuu bilaabay intii yareyd dhaqaalaha ugu mudan meesha in mushaar bixiyo waa maamulkii ugu horeeyay ee mushaar toos looga qaatay bishii 20keeda la qaadan jiray lacagta ila dhawaanahan daba baa la yiraahdaa haddana xoogaa dhaqaalada roob macnaha waxba meesha ka yara baxay bilaha qaar ciidan buu dhisay oo maanta dhowr iyo 10 karo ciidan ah oo habaysan oo ciidan badda ah leh xagga nabadgelyada ciidan daraawish badan buu dhisay ciidan biliis buu dhisay iyadoo sidaa ay tahay haddana alxamdulillah wuxuu ku guuleystay inaanay dagaal la dhicin oo meelaha dariska aanay dagaal ka dhicin siyaasadda wax ku doonayay waxa uu ku guuleystay xagga dastuurka marka la eego way dib haddaan ugu noqdoba xagga nabadgelyada wuxuu ku guuleystay argagixisadii inuu la dagaalamo oo ilaa hadda guraha ku jira oo dhowr sano ilaa 3-4 sano hadda uu ku horfadhiyay buurta hoosteeda ولا لا دجال مرتيو آد بقول كوكا دقي لكن وضد ملاها إسكور وريجي وملاها الدهر بدأ قاتل مويا إن حاجة تعليمته وكوكول يستي إن ومنهج المدرسة بنتلان والله قد يضه إنه الصبيو ده هو الصومالي مركل يقول معنا هذا مركل حتى دولته مركل هذا كدول يسوع إن منهج بنتلان بالغ أيون الصو أما هنو سيانو وقال قادم ومنهج كانوا كل شقين وحي مقرن يساعد كبد ذلك الرو هذا وحكي على كبد لكن وقت در بقادم يساعد دي دولة استرادة فدرال كاين منهج يجو سمية مركا هو نمبر 1 واللي بلقى اعتراف سيء ما ربنا ودك السودان وكبد هاي وإثيوبيا كبد هاي مركا وحكى له وحكى وكجاري سي دولة هوسي إن برمرين تونا إن و هذا دور قبل لا هذا حنا ريان I think أنت لا بيكون طالع مقصود لا بكلاته وهذا يو إن دي بي أيها خارج قضاء الحصة ودولة وده وصل له للسيو هو أنت لا بيكون طالعنا يجا وضحية يو إن ولي مقالو كلو كشرة إن واحد يقول يستي إيربورت already وادركتان وهذا إيربورت بوساس وإن بروجرس ويسعودا اسميسو كي جرو سنة هذا دولة كويت تهنيسا 4 مليون لقوا سميو هو يقولون هذا إسرائيل بلاوية جامعة ماخر ومرن يدنا 6 مليون فاكت ميجري وحاسو ولا دبلوم باكري ولا واحد باكري ولا اسكو هي
cilaaqaadka marka international community-ga maanta cilaaqaadka uu leeyahay meesha uu soo gaarsiiyey isaga ma hadda ilaahay ma hadda iskale laakiin isaga halkaa keenay maba jirin macnaha Puntland waxa ay aad ugu qoreyd inay tahay macnaha dee waa jireen maamul u dhisnaa laakiin meel habeen ku hoydaan oo dadka cadaanka ay yimaadaan ama ay barnaamijka maantana safaaradii baa inta yimaadaan safiirka Mareykanka iyo kii Holland iyo waxaan Australia iyo inta yimaadaan bay shan habeen iyo joogaan inta doonaan iyo kii iyo macnaha waa wax la taaban karo aan ahay wax la iska yiri marka banaynta hadda meesha baneeyay xagga maaliyadana mushaharada uu bixiyaa stilna uu bixinaya ilaa dawladana hadda ay qabatay marka waxay noqotay meel indhaha caalamkana uu kusoo jeedo dawladda federaalka ah ficlan dhismeeda wax ku lahaayo marka la eego dastuurka Puntland isaga sameeyay federaalka dastuurkiisana aad iyo aad buu ugu dhabar jabay oo ugu fara adeegay in uu hirgalo uuna ku guuleystay wixii dawladda marka xaq u lahaa dawladda federaalka waxay shiraado way ku siibatay oo halkaas waxbay ka bedeshay inuu ku yiraahdo ma sida ma ka tahay waayo ceeb maaha waxa waa wada dhisanay marka adeegtay federaal ahaanna soo far waxa weeye waa state-ka kaliya Puntland ama regional administration-ka kaliya ee iminka jira ee la isku halayn karo ee wax laga dayn karo kuwa kale oo dhameeyay waa iska qaaran shuruuda buuxin qaar yar qaaraan weli hana qaarin loo badan yihiin marka iyada uun baa ilaa hadda dastuurka u dooda wixii la yiraahdo waa mana aha in xumaan ay ku jirto dadka hadday wax kala tabanayaan waa dhihi karaa war waxa saas maayo waxaa laga daayo dad badan baa waxay u arkayeen Cabdiraxmaan Faroole inuu ku fiican yahay faraska isaga saaray inuu sii wado laakiin may dhicin wax yar qof baa laga guuleystay whatsoever qof ugu habboonaa inuu qabto Puntland ayaa uu qabtay Cabdiweli aad baan lagu hambaleynayaa rusalaamena waa academic isaga iyo reerkiisu labaduba macnaha waa the most highly qualified family oo so far geeska Afrika ka qabta administration markaas waa nin siyaasadda ku cusbeyno prime minister iyo high level soo qabtay executive waa nin garanaya international community-ga iyo xakuusi isugu xidhay aad isugu fiican yihiin ra'iisul baarlamaanku isaguna kadalik waa sidaas oo kale waa nin last 10 years ilaa yaraantiisa ku galay ilaa tii cabtay ilaa hadda wuxuu ku jiray wuxuu ahaa baarlamaankii wuxuu ahaa federaalka waa nin isaguna garanaya si ay u soconayaan ninka madaxweyne ku-xigeenkana waa nin magac leh isaguna oo reer bohooda leh aad caan uga ahaa aan rajeynayno insha allah kulli si loo taageero aragnay marka horumarka wixii la gaadhay oo Cabdiraxmaan Faroole uu gaadhay iyo tiimkiisu waa mid xusuusan doono oo aan cidina dafiri karin la iska dafiri karin Cabdiwelina waxa looga fadhiyaa iminka waxa weeye expectation waxa laga sugayaa aad u badan yihiin resource kule ka waa yahay marka loo eego administration yeelkadeeda I think Cabdiweli wuxuu ahaa inuu yahay qofkii ugu habboonaa ee maanta qaban lahaa marka insha Allah isagana waxaan rajeynaynaa in isagana laga xisaabtamo halkaas oo kale milestones ka badan uu jaro isma uu yeeli doono insha Allah marka ayaan hada ku raagin أجل يوم ما كنت أقول وحنا كنا جنا قبيه هري برنامجك قبيه نبغى وحنا كسر قادم دونا سيدا هرو الشغلة لأنك يوم بدل دارة الموسيقى يعاون إنه قمر تطلعي فأنا دقالي قال لك حاجة وعيس يروح برشة كقولت إنه قل بدهني كم كانوا حاطين يعطنك هوين كعاون مثلا نقول هاي قضية السعودية قضية الشخص اللي كانوا إنه هو في حين دور كهوين كي كقادم تكون محكمة تبدأ كانوا Soomaalida mahmada hadal baan ma buuxsho waxaan jeclaan lahaa in aan fikradeena dumarka ay xaqa ay u leeyihiin doorka haweenka la siiyo dawladii hore ee Puntland ay ballan qaaday oo uu Cabdiraxmaan oo ahaa madaxda in la siin doono haweenka Puntland 30%, laakiin waxaan u maleynayaa inay 5% heleen. marka waxaan uga fadhinaa hadda Cabdiweli inuu 5% na siiyo maadaama Cabdiraxmaan 5% na siiyay. marka doorka haweenku waa door muhiim jiddan ah aad iyo aad u wanaagsan dhinaca waxbarashada, dhinaca horumarka, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca funuunta, dhinac walba ayay ka dhisan dalka. waa يعني wax aan ubax lahayn miis markaa sharaxdid hadduu ubaxu ka maqan yahay misqaam ku jira. marka doorka haweenka aad buu muhiim u yahay. caawa halkan waxaan u maleynayaa xataa ragga iyo dumarku inay dumarku badan yihiin.
marka halkaasaad ka garanaysaa in doorka haweenku muhiim jiddan yahay. waxaan leeyahay puntland ilaahay ha barakeeyo horumar iyo waxaan u rajaynayaa iyo mustaqbal wanaagsan. dowladda dhexe oo soomaaliya wada shaqayn buuxdaan ka filaynaa. marka dadku waxay mar walba ka fekeraan qofkaas muxuu qabtay. qofka wuxuu qabtay iyo wax sheegsheegeeda muhiim ma aha, adigu maxaa qaban kartaa ayaa muhiim ah. qofka bini'aadanka ah waa inuu dadaalo oo uu ku dadaalo siduu wadankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa u horumarin lahaa. haddii intaa lagaa waayo aad bay u adag tahay inaad waxaas muxuu qofkaas u gaaray lama dhaho. waxaa la dhahaa waxaas qofkaas wuu gaaray alla ilahay anna aan isku day inaan gaaro. marka doorka haweenka muhiim jiddan waay, maxaa yeelay waa dad actiif ah, waa dad jecel horumarka wadanka, waa dad dhiiran, waa dad horumarka wadanka aad u dhisa. ma fahamteen markii shoobara hadda la samaynayo maalan dumarku waa dadka ugu shoobaraha badan. hadday laakiin noqoto tartan iyo dadaal iyo waxqabad, xaqiiqatan waxay dumarku u buntadaan horumar bay ka gaaraan. marka dumarka reer puntland waxaan idinkula talin lahaa xafladaha abaabulistooda keliya noloshu ma aha. abaabulistu waa dhaqanka wadanka dhismihiisa. hooyadu waa udub dhexaadkii guriga. hadday hooyadu dhisto guriga wuu taagnaadaa. maxaa yeelay 24 sano oo wadanku burbursanaa haddaysan hooyo jirin, ragga quruxda badan ee saa u safan ma yimaadeen caawa halkan. kulligood hooyaa soo gelisay. ma fahamtay marka ani waxaan hadda ka codsanaya gabdhaha reer puntland sida gurigiina u dhisteen. ayadoo dumarka aan ogahay qaar waxay caruurta ku koriyaan agoon, qaar waxay ku koriyaan ayadoo la furay oo ninkii iska noqday nin meelaha iska seexseexda ooba ilmaha aadan moodi inuu mas-uul ka yahay xaqiiqatan. marka hooyooyinka reer puntland waxaan idinkula talin lahaa walaalayaalow aan gacmaha isqabsano, aan wada shaqayno, quluqulatada iyo maaragtay isjiijiidka iska dayno. naag walba waxaa layidhi kullu rajul cadiim waraa'u imra'a ayay carabtu ku mahmahdaa. nin walba oo geesi ah oo horumar leh oo maaragtay la yidhahdo alle hebel fiiriya ekhti naagtiisa hala fiiriyo. the best quality women at the world buu haystaa markaa ninkaa fiirisid. maxaa yeelay heerkaa muu gaarin haddaysan naagtiisu fiirin. ma fahamtay marka walaalayaal aan wadanka dhisano. maanta dowlad wanaagsanna waan haysanay oo doctor cabdiraxmaan faroole aad buu usoo dhisay puntland. dhinaca siyaasaduu ka dhisay, dhinaca banaanka dibaduu ka dhisay, dhinaca guduhuu ka dhisay. way iska jiraan waxyaabo cagajid ah. qof adduunka aan dambi gelin ma jiro, qof adduunka 100% ma jiro. cabdiwelina ha ka filinina inuu bridge idin dhiso, inuu wadanka one day uu kaga dhigo dhala saas oo u dhalaalinaysa. waxa weeye wuxuu u baahan yahay taageero buuxda, taageero buuxda. qofka haddii la taageero dadku ninku hadday dadkiisu taageeraan waxbuu qabtaa. haddii laakiin aysan dadkiisu siduu rabo aysan u taageerin. hadda ani waxaan aaminsanahay wadada dheer oo gaalkacyo iyo garoowe isku xirta hadday dadka shacbiga reer puntland lugta u xirtaan inay dhisaan, looma baahna kambani caalami ah inuu yimaado dhiso. shacbiga reer puntland ayagaa dhisi kara. marka waa mahadsantihiin. intaasaan idinku guubaabin lahaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad aa umahadsan tahay. weli waxaan ku dal jirnaa qaybihii dhexe ee khudbadaha. iminkana waxaa mikrofoonka siinayaa burhaan cadaawe, asigana duco iyo hambalyo u diri doona madaxda cusub ee maamulka puntland. burhaan kusoo dhow. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan mahad ballaaran u soo celinayaa walaalaha sida quruxda badan u soo diyaariyay xafladan sharafta leh oo loogu talagalay inaanu ku sagootino halyeygii kursiga baneeyey mudane cabdiraxmaan faroole iyo madaxweynaheena cusub cabdiweli maxamed cali kaasi. walaalayaal aad baan kugu mahad celinayaa dadka sida quruxda badan usoo hagaajiyey xafladan. waxaad moodaa wax yar inaan ilownay asaaskii puntland. waxay la tahay maanta dadkaan quruxda badan oo halkaa isugu yimid unkumayaashii puntland haddaanaa xusuusanayn inaan maanta puntland wejigeeda uusan saan ahaan lahayn. waxaan kasoo bilaabayaa odayaashii isnimadii asaasay puntland. aabihii puntland janno iyo raxma allah siiyo cabdullaahi yuusuf axmed, ilaahay jannadii ha ka waraabiyo. marihii uu sameeyey asaaskeedii baan haynaa maanta oo qof kasta oo reer puntland ama soomaali ah uu qarsan yahay. marka inta aan ka gudbo puntland maraaxil badan bay soo martay, wax badanna inaan ka sheegno
waxay la tahay waa laga wada hadlay qori siyaasaddu waa qori isu dhiib weeye ninba nin buu u dhiibay ilaa halyeyga uu wareejiyey xilkii uu ka hayay puntland oo sida quruxda badan uu ugu wareejiyey madaxweynaha ugu adkaaday doorashada cabdulle maxamed cali gaasi wax qabadkiisii waa laga wada hadlay haddee puntland waxay ahayd dowlad dhisan instituushanadeeda iyo dhinac walba ka dhisan tii baana maanta lagu wareejiyey madaxweynaha cusub aan u rajeynayno ilaahay inuu u fududeeyo xilkan culus oo u qaaday ummadda reer puntland puntland uma dhisna keliya reer puntland keliya puntland waxay tahay dhul soomaaliyeed waxayna horseed u tahay midnimada iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed iyo puntland horseed u tahay walaalaha koonfurta idama aanaan iloobin walaalihiin baanu nahay wixii aan haysanno aan helnayna waa inaga jecel nahay waxaan idiin rajaynaynaa haddii ilaahay idmo nidaamkan ay maanta puntland ku caanamaalayso inaad dabada soo qabsataan meel kasta aad joogtaan soomaali weyn oo dowlad federaala oo aan wada dhannahay aan isugu nimaadno oo dadkuna isla ogol yahay dowladda federaalka oo maanta jirta waxay haysataa fursad aada qaali u ah fursadda ay haysato waxa weeye puntland waa maamul goboleedka ugu weyn oo soomaaliya ka jira wey marka waxaan kula talin lahaa madaxda sare ee dowladda federaalka inay albaabada furto ay dareento kaalinta hormoodka puntland ay ku leedahay soomaaliya ninna indhaha iskama tari karo ninna ma qarin karo puntland waxa ay soomaali ka mudan tahay soomaaliya maanta meesha keliya ay soomaali badbaadisay 20 sano soomaaliya isdaba marka iyo calooliyowga way ku jiray waa puntland wey qof kasta oo soomaali aan ahaanti buu ku leeyahay oo degan yahay puntland oo ninna aan looga soo celin maantaasna waxaa iskala reer puntland oo soomaalinimada ay daacad ka tahay anigaan idinla hadlaya soomaali waxaan ka soo tegay oo dowladda yaan ka soo tegay qurux badan burburkeedina waddankaanaan joogay maantaan isleeyahay soomaaliya dib bay usoo noqonaysaan halkaanaan weli ku sugnay marka dadkii waxaan ku jiraa canshuurta dowladda abartii suuqa sigaa la fadiday camal canshuurtii laga qaadayay dadkii wax ku bartaanay weli abaarkiina ma anaan gudin abaarkii soomaaliya ay nagu lahayd puntland keliya maa soomaali canshuurtay lahayd baan wax ku baranay cabdiweli maxamed cali gaasiye aniga laba ninoo aada saaxiib aan u nahay ninaan aada u aqaan weeye nibaan aan soo wada qaadanay weeye waqtigii dhalinyaranimada iyo ardaynimada aan jaamacaddii gahayr aan ka wada baxnay marka nin aada u qiimo badan weeye madaxweynaha maanta nasiyaalatay marka hambalyo gaaran asigana u dirayaa reer puntlandna waxaan u rajaynayaa jaaniskan ay heleen inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub oo gacan weyn la siiyo far keliya fool ma dhaqdo haddaan cabdiweli la taageerin waxay la tahay inaan horey loo soconayn reer puntland gacmaha ay isqabsadaan waxaan u baahannahay hal ummada hal dala aan wax kala soocaysi jirin yaanu u baahannahay kanaa keera iyo kanaa keera waaye waxa soomaali lugeeye weye meelna lagu gaari maayo marka soomaali weyn farrintaan u dirayna waxa weye walaalayaal waa puntland waa idiin furan tahay waana idinka qayb qaadanaynaa waana idinka caawinaynaa dowlad federaala oo aan wada leenahay soomaaliya inay u dhalato annagoo gacmaha is haysana soomaaliya ha midowdo ha israacdo idinkuna noolaada waxaan aada ugu faraxsanahay run ahaantii dhibaato la-aan ayadoo la isdilin ayadoo uusan dhiig daadanin in ay doorashadii u dhacdeen xaq iyo cadaalad waxaanu sugaynaa intaas iyo ka badan haddaan reer gabdhihii puntlandii aanu nahay intaas iyo ka badan ayaanu ka sugaynaa madaxweynaha loo doortay puntland
haddaan u soo noqdo madaxweynihii faroole wax wanaagsan ayuu u qabtay isigana waddanka wuxuu ahaa halyeey goosan kara cadkiisa waana uu ku mahadsan yahay haddana annaga haddaan gabdhihiina waan ugu hambalyeynayna inuu si sharaf leh uu ugu wareejiyo cabdiweli xukunkii intaas waa intaas tan kale haddaan u soo laabto haweenka ama gabdhaha puntland waxaa weeye horta haddaan ka hadlo xorriyanimadii soomaaliya gabdhaa dhaliyey gabdha haddaysan jirin xorriyanimo soomaaliya kama aysan dhalateen dhiiggoodii iyo dahabkooda ayay u hureen ayagoo qabiil lahayn ayagoon isfiirsanaynin ayagoo leh mataqaana annaga waxaan nahay gabdho soomaaliya hase yeeshe haddaan seedaaliyo ama aan u soo noqdo gabdhaha waxba kama aan sheegi karo puntland waayo anima ku noole halkaas mana ka warqabo laakiin haddaan u soo noqdo gabdhaha reer holan waxaan u malaynayaa waddan kasta waxaa dhisa gabdhihiisa madaxweyne waxba ma uu qaban karo sida ay u dhaheenba dadkii igu horreeyay hadalka ay ugu soo jeediyeen gabdha ayaa dhisa gabdha ayaa wada nimanka gabdhaha ayaa riixa nimanka hadalka anigu ku aan dheerayn maayo bacdamaa dadka fadhiya ay rabaan mataqaana inay qoobqaciyaar sameeyaan inay muusig dhegaystaan waxaan rajaynayaa haddaan u soo jeedsada gabdhaha puntland ee netherland ku nool inay si gooniya ay waddankooda ay u fiiriyaan waayo hadday rabaan waxyaalo badan ayay samayn karaan haddaan aniga iska hadlo waxyaalo badan marar badan ayaa waxyaalo la ii ballanqaaday dowladda netherland laakiin gabdhaan waayey nasiib daro taas ayaa waxay ku dhacday inaana farkal iyo formu meertee aan ku gaari waaye meeshii aan rabay dalkayga inaan wax ugu sameeyo laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa cawada bacdama ay imaqlayiin gabdho badan inay meesha ka kacaan waddankiina aan wax u qabanno khaasatan hooyooyinka ilmaha dhibaatadii waa dhaweed dhacday oo mataqaana qabowgii dhacay ilmo badan ayaa u dhintay hooyooyin badan ayaa waxay u baahan yihiin waxtarnimo haddaanu nahay gabdhaha jooga magaalada netherland waxaan rajaynayaa inaad isxilqaantiin oo aan u soo jeesano waddankeena yeelkeenna sidaan u daryeelayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saan hore u yidhi puntland maanta heer la oran karo weliba waxayba ka horeysaa maamulka xamar federaalka ayayba ka sii horeysaaba waa la oran karaa hadda waqtul xaadir waxyaabo badan oo aan tigsanaynaa jira oo ay ku xiran tahay kullayba puntland dowlad goboleed weeye dowlad goboleedna macnaheedu waxa weeye caalamkii lama xisaabtami karto caalamkii waxa uu bixiyo waa inay maaragtay dariiqyo kala duwan ay u madhaa waxaan rajaynaynaa midda soomaaliya maamulka soomaaliya inuu arko maamulka puntland ka dhisan inuusan ahayn mid ay gees mari karaan marka hadda taariikhda dib loogu laabto maaragtay aqoonta dib loo fiiriyo puntland masaaxad ahaan waxay ku fadhidaa 3 meelood meel dalka soomaaliya haddaad ogtihiin midda labaad dad ahaan 3 meelood meel baanu nahay dhaqaalaha hadda waxaa la yiraahdaa markii hore waxay 3 meelood meel baa ahayd laakiin hadda waxay u sii socotaa half inay noqoto puntland sababtoo ah dhinaca koonfureed wax dibadda ka yimaada mooyee wax ay gudaha inta laga soo saaro dadku ay maaragtay dibadda u iibgeystaan ma laha mana sameeyaan ilaa waqtul xaadir marka deegaan nooca ah oo ilaa dhowr iyo 10,000 oo ciidan daraawiisha fadhido nabad ah iyaga ama ay suurtoobenba in dadka intaa tiro la ego masaaxada tiro la eg degan in aan waxba laga soo qaadin oo ayaga dib ugu soo laaban doontaa haddana waxyaabaha socda oo maaragtay adduun weynuhu arkay waxa weeye arrintaas puntland hadday dowladda soomaaliya ay waxba ka qabanin inay cariiri tahay aqoonsiga ay hadda xataa la aqoonsaday iyo jiritaankeeda midda labaad howsha waa howsha cabdiweli u taal cabdiweli wuxuu soo ahaan jiray prime ministerku dalku soo ahaa waana uu ka warqabaa waana og yahay meelaha waxyaabaha la taaban kara ay ka jiraan waxaan u rajaynaynaa una duceynaynaa ilaahay hadduu idmo inay ku guuleysiiyo kulley caawa waxaan isugu nimid inaan isbaraarujino xafladana ka qayb galno wixii dambe oo arrimahan ku saabsanna waxaan jeclaan lahaa inayn caawa keliya noogu ekaanina marar kaloo dambe in aynu is aragno hadduu alla idmo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wiilasha maamulka hayaa waxaan ka codsaday caaw in hadiyad la siiyo 2 qofood. 2 qofoodna waa in ay ka jawaabi karaan 2 su'aalood. waliba idinka badan gabdhaha badan baan filayaa waxa weeye 2 su'aalood baan ku bahalka aamusan 2 su'aalood baan idin weydiin lahaa gabdhahaana badan su'aasha hore iyagan weydiinayaa maadaama reer Puntland ay wada tihiin xafladda ka soo wada qayb gashaan ku faraxsan tihiin maanta in aad dabaaldegan ka qayb gashaan su'aashu waxay tahay Puntland habeenka caawa aan joogno imise gobol bay ka kooban tahay انت سجلتها استاك هذه الله ما سؤال بكر سما عندنا سجال صدقني سجاليه عندنا سجال كم إذا مودين مليون يا ديار واحد تضرب كم إذا ينوشها معيدا يا haddaan isku dayo waa gobolka bari gobolka nugaal gobolka mudug gobolka cayn gobolka sanaag gobolka laascaan gobolka karkaan Ada sebentar. Mereka suara. Ya. Kawan waxay sheegtay toddobo. Waxa la yiri waa sagaal, waa sax waa sagaal. Labada haday iyo magaalo madaxda labada gobol baa la idinka rabaa maxaa haray هيلا اوكي كردفون مركورة صحيح مركورة صحيح مركو حاولت جد سؤالها كان أرثر وين تقالن مش هكتم هذا إيو تبى حتى ويب سايت كيكو ده قري إنترنت كلا جودة ليه واحد ويده وهو نفس أنت رنتي واحد هذا لما كان كلمة هذا يوغسلافيا دي هراء واحد يقول لي هذا بوسنيا هرسفينا waxay sheegtaan badana yihiin runtii dad muslimiin ah oo ka yimid asalkooda Turkiya laakiin qaarkood intooda badan waa iska aaminsan yihiin laakiin wax waxay yihiinba ma yaqaanaanba hadda idin hadaydan aqoonin caruurtii bari maxay noqonaysaa way bari waxa ka garan miyaanba kuwa way sii dhalaana waa maca salaam marka waxa kan idinku inaan maaragtay idinku marka hore inaad wixii aad taqaanaan kanasaan oo caruurtu marka la baro waa wanaagsanaan lahayd marka waxaan idin rajaynayaa caruurtayada iyo kuwa daboos ay dhalaanba inay ilaawin xuduudda Puntland ay leedahay inta
gobol ay ka kooban tahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ugu talagalay maanta inaan xogaa hadal halkan ka soo jeediyo laakiin intaan meesha fadhiyey yaa waxaa ku soo dhacday inaan barnaamijka wax ku bedelo ninka odayga ah wuxuu noo bilaabay inuu su-aalana weydiiyo marka waxaan u arkay in maaragtay ay ku fiican tahay in maaragtay dhowr su-aalood aan isweydiino si jamhuurkuna uusan iska badino uu sameeyo reaction uu sameeyo marka waqti badan ma qaadanayo laakiin dhowr su-aalood baan halkan hayaa waan rabaa in hadday suurtagal tahay aan weydiinayaa ciddii markaa jawaabteeda haysaa si ay farta u taagto si deg deg ah waqti badan haysa may maqlaysaa yaa garanaya qofkii ku guulaystay qofkii Soomaaliga ahaa ee ugu horreeyay ay ku guulaystay orodka 1500 oo mitir Cabdi waa sax yaa garanaya ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Abdirasaaq waa sax jawaabtu waa khalad ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay waa Cabdirashiid Cali Sharmaarke yaa garanaya hooyo Soomaaliyeed oo u soo halgantay gobolimadii Soomaaliyeed waxayna u martay xabsi iyo waxay u mutaysay Timiro Okaash yaa cid ka garanaya 13 nin ee ka mid ahaa SYL qof yaa ka sheegi kara saddex iyo tobankii xubnihii SYL yaa magacyadooda wax ka garanaya yaa qof ka garanaya Maxamed Cali Nuur Daahir Xaaji Cusmaan hal qof baa waa sii wadaynaa magaalada dhaqaalaheedu ugu horumarka badan yahay Soomaaliya 20 sano u dambeeyay Boosaaso jawaabta saxda ah waa Boosaaso caasimadii halkaasii lagula jiray caasimad yaa garanaya waa caasimadii ama xaruntii halgankii lagula jiray dowladda Ingiriiska waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya Taleex jawaabtu waa sax وقرأ وين أو كتاريخي تاريخي سيد محمد عبد الله حسن مدلل جوجا دور معلوماتنا نيريودي الجامع جواب واسع وهالجبان وين oo qayb weyn ka qaatay dagaalkii lagu la jiray dawladda Talyaaniga waxaan rabaa inay jawaabaan qolada dhalinyarada
waxa weeye halgamaa weyn oo qayb weyn ka qaatay la dagaalanka talyaaniga maqlaysaa dowladda talyaaniga wuxuu qayb weyn ka ahaa halgankii lagula jiray dowladda talyaaniga ingiriiska maaha waa talyaaniga waa cumar samatar waa nin u dhashay magaalada gaalkacyo waa fanaan weyn waa fanaan soomaaliyeed kadib markii uu tegay dalka Maraykanka ayaa dad badan oo Puntland ka soo jeeda waxay isweydiiyeen meesha ay ku dambeyn doonaan fanaaniinta Maraykanka jawaabtu waa sax dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa waa u tahniyeynayaa madaxda cusub loo doortay maamul goboleedka Puntland waxay ila tahay Puntland waxay u taagan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed taasaana muhiim ah oo suuqa ay keentay maanta waxaan fahmayaa inay nala joogaan dad badan oo walaalayaal oo Soomaaliyeed oo ka kala socda koonfur iyo waqooyiba aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ku taageersanahay ninka odayga ah hadalkiisa message maanta aan bixinayna waxa weeye inay Soomaali tahay mid dhaqanka Soomaaliyeed baa wuxuu ahaa in marka uu horeysa dadka martida ah laga hormariyo dadka guriga degan marka waxaan leenahay Soomaalidu Puntland waa gurigiinni koowaad cidna marti uguma tiidin soo dhawaada Soomaalina waa mid Puntland waxay u taagan tahay qarannimada Soomaaliyeed wax yar waxaan rabaa inaan wax ka iraado ma raba inaan ku daaho xagga jaaliyadana Soomaaliyeed dalka Holland waxa inoo taala hawl badan su'aasha muhiimka ah oo loo baahan yahay in isweydiino waxa weeye maxay halkaan soo dhim maaynu intaynu u tahniyeyno laba nin oo la doortay ama saddex nin oo la doortay aynu ku kala tagnaa mise risaaladu ama hadafku intaa waa ka weyn aniga waxay la tahay hadafku intaa waa ka weyn muhiimadda halkaan aynu isugu nimid waxa weeye kulligeen hal waxaynu nahay wada halkan danteenu waxa weeye in dalkan uu hormaro uu ka baxo dhibaatada uu ku jiro Puntland ay horseed ka noqoto sidii dowladda Soomaaliyeed loo soo celin lahaa aniga sidaas ayaan u arkaa ka shakhsi ahaan waxaan u malaynayaa dad badan ay la qabaan waa inaynu ka shaqeynaa si aynu dadkeena u horumarin lahayn waxbarashadu waa meesha keliya oo aynu wax ka horumarin karno waa inaynu carruurteena la dadaalnaa xagga waxbarashada hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadka martida noo ah magaalada Eindhoven wassalaamu calaykum aad iyo aad ayay u mahadsantahay iminkana waxaan kusoo gabagabeynayaa qaybta khudbadaha waxaan u wacayaa Tawfiiq Shire asigana warbixin kooban laga siin doono dadka dhalinyarada Tawfiiq welcome بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمرك لفظ الشعب ببوتلاند dhalinyarada haweenka odayaasha waliba caawa ugu dambaysiinaya iyo dhammaan martida sharafta oo ka soo qayb gashay aad baan u mahadsantahay odayaasha waxaan ugu dambaysiinay gadaal baan ka sheegi doonaa insha Allah xagga hambaliyada iyo madaxda isbedeshay waxaa dhameeyay oo aad uga hadlay odayaasha iyo dhammaan dadkii hadlay aniga waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo doorka dhalinyarada reer Puntland ay ku leeyihiin dhinaca Soomaaliya iyo gudaha waddankan ay joogaan 4 sano adiga 5 sano meelaha inta dhalinyarada waddankan ay joogto ilaa dhalinyaradii 5 sano gudahood timid ba activate ah
magaca reer puntland oo waddankan in la soo qaado bilowday rag dad badan oo meeshan caawa waxaa jooga waddankan joogay 20 sano ama ka badan waxaa laga yaabaa weligood xaflad reer puntland ama meel reer puntland isugu imaanaya inaysan tegin ama ayagaaba is haystaba waxay u badan tahay ama macnaha boqolkiiba 90 activate-ka iyo xafladii hore oo puntland la qabtay kulamadii hore oo puntland la sameeyey dhammaan sameeyey dhalinyarada sidaa darteed horta dhalinyarada ammaan baa u jeedinaynaa waxaan leenahay meesha ka sii wada حتى حفلتان بقولك سجاشة دليرة قوم قابل الصدور كدليرة حلق وطن كان شوقة سيدا أصبح مغضى وحنا كوكو قادين لنا أن أدلو جينا إن أي معناها أنت سيلة بالجباران دور كدليرة وطن الصومالي أدلو مغضى مدحة الصومالي مركو حروا تانس كأننا وقف أيديس مدحة البوتلان حتى قبط إن أي دور كدليرة أي أدلو صوصاران oo doorka dhalinyarada ay muujiyaan saarahan xukuumadii hore oo madaxweyne cabdiraxmaan qaroole oo wax badan qabatay wadanka wax badan ka bedeshay labada wasaaradood oo ugu fiican wasiirka waxbarashada wasiirka caafimaadka labadu waxay ahaayeen dhalinyaro sidaa darteed waxaan leenahay odayaasha qurbaha ka tegey iyo dadka kale oo qurbaha ka tegey oo noloshooda haysta yaan dhalinyarada wadanka wax ku baratay noloshooda loo bedeli wasiirada agaasimayaasha dhalinyarada wadanka wax ku baratay hal la siiyo message-kaas baan gudbinaynaa dhalinyarada xuquuqdooda hal la siiyo dhalinyarada wasiirada iyo waxa weeye meelaha maaragtay shaqooyinka fiican hal la siiyo haddii kale waa soo tahriibayaan baday ku dhimanayaan dhibbay gelinayaan waxay ka niyad jabayaan wadanka wax u barteen saa darteed waa mustaqbalka wadanka burito ayagaa jaaniska mudan dadka dibaddu ma mudna dadka dibadda oo noloshooda dhacsan karaa ma mudna waxaan kaloo wax yar rabaa inaan idhaahdo sugaan yar aan ku cabiro hoolka iyo dhalinyarada maaragtay xafladda samaysay dhammaantiin cirooliyo marti sharaf cisaliyo guddigii camire iyo kulligiin cawayskow soo dhowayn cimaamadan ayaan caynka xarafkiyo u ciseeyo hoolkoo cidhifyadiina dhigaya caawa waa damaashaad calashaan puntland baa naacow ku curatoo aan u wada casumanahay calankan buluuga ahaw cagaarka iyo caddaanka ahaw puntland baad u curatay caraftaadu badana ma ciseeyo ruuxan cidhifyadaada dahabkaa marna calanlamoodka aanu qirin cadkiisa odayaasha xoogaa dhaliisheertaada u soo jeeday waxaan leeyahay dhalinyarada idinku ka horreeya oo haga oo dhalinyaradu idinku yeysan inay haga waa mahadsantihiin aad ayaan u mahadsantahay waxaan inaa qaybtii hore ee khudbadaha soomaali waxay hore u amaatay mugtiga cunugooyinkiisa ayaa laska rabaa caawa waxaa inoo martiyaan lanka xaaji wacays oo naga tumi doono hoosooyinkeeda qaaliga ahaa waxaan si aad ugu mahadcelinayaa marti sharafka nagala soo qaybgalay xafladda oo waqtigooda noo soo huray waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa guddigii soo qabanqaabiyey xalfadda waxaan mikrofoonka sidoo kale ku soo dhaweynayaa qaybta muusikada si aan masraxa u balleysano idinkuna waxaa idinka codsanaya inaad kuraasta gees ugu leexdisaan si aan isla caweyno madaxweyne doorkan adiga dalkeeniyo lagu doortay qarankee puntland daadaheeyo hadaayicin xilkee guudo madaxweyne doorkan adiga dalkeeniyo lagu doortay qarankee puntland daadaheeyo hadaayicin xilkee
daafaca madaxweyne doorkaan dariiqiisina hantiyo doog iyo barwaaqada guda reeri shacabku danyarteenna gacan qabo madaxweyne doorkaan dariiqiisina hantiyo doog iyo barwaaqada reeri shacabku danyarteenna gacan qabo aqoon-yahan damiirno daqligoo siyaadiyo inaan daraja gaarna dar alle filayna siyaadiyo inaan daraja gaarna dar alle filayna waan ku ducayne noqonkii dadaalo macatada daryeelo dibna loogu aayo magaceenna daafaca waan ku ducayne noqonkii dadaalo macatada daryeelo dibna loogu aayo magaceenna daafaca magaceenna daafaca magaceenna daafaca lama oodi karo ugaaskii rago iska inta ku nool adan ku jeclahay aad baan idinku mahad celinaya qoladiina saxaafadda xafladdu waxay noogu dhacday si qurux badan ilaahba mahadda iska leh runtii waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay
intaas haddii aan dhaafo waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed guushii ka dhacday puntland gaar ahaan ummadda reer puntland waxaan si khaasa ugu hambaliyeynayaa madaxda cusub ee uu ugu horeeyo professor cabdiweli cali gaas sidoo kale waxaan rabaa inaan hambaliyo taa lamida u diro madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland doctor frole run ahaantii waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo dhammaan dadkiina nagala soo qayb galay xafladda waxaan rabaa inaan u duceyno maamulka cusub ee dowladda puntland ilaahay inuu la garab galo hawshooda cabdiwelina waxaan rabaa inaan dhaho cabdiweliyow dadka reer puntland u cadaalad fal waxyaalihii aad xilligii aad kambeynka ku jirtay aad ka hadashay ka dhabee ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu kula garab galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu daawadayaal sidoo kale waxa ay garab taagan waa mahad waxa uu ka mid ahaan jiray diblomaasi u shaqayn jiray wasaaradda arrimaha dibadda mahad bal ka waran xafladan bal sida u dhacday bal dareenkaagana ka war bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin qoladiina baha saxaafadda runtii dareenkayga lama soo koobi karo dareen lasoo koobi karo maaha maasha allah weeye waana ku farxsanahay meelahaan oo kale in la isugu yimaado wix afkaar la isku dhaafsado iyo wixii farxada waxaan rabaa inaan halkan laba fariimood ka diro mid waa hambaliyo madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka master camey sidoo kale master siciid shire guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynuhu horena waxaan leenahay laftiga taariikhda ku xusu doonta insha allah waxaa qabatay taalan lagu dhisi doonaa hiiraa tahay intaa kadib waxaan rabaa inaan madaxweynuhu kulley taladii kaama qof kale ku jira aanu fariinta halkaa uga diray waxaa weeye dalku xaaladdu maraya wuu la socdaa madaxweynuhu iyo nimanka la doortay marka dardaarankayga kulley aqoonta aan u leeyahay waxaan leeyahay hay-adaha security-ga reform ku samay oo dadka jidadka ku leynaya aan waxba laga qabanayn oo streetka ciidanka taagan iyo street ku xigana dadka lagu leynayo reer puntland muwaadiniinta ah waa inaa wax ka qabataa tariyada ciidanka iyo hay-adaha sirdoonkana awood la siiyaa si ay u ugaarsadaan ama usoo qabtaan dambiilayaasha dadka endergaradka ama qiimaha dadka ugaarsanaya waan idin mahad sidaas oo kale ugu mahad celinayaa khayr iyo barwaaqo guul baan u rajeynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan salaamu calaykum waqti xafladda quruxda badan lagu dhigay isla markaana lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub ee Puntland professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxay garab taagan gudoomiyaha qabanqaabada xafladan quruxda badan oo lagu dhigay magaalada Indofan ee wadanka Holland nasin ku soo dhaw TV-ga caalamiga Home Cable TV bal dareenka ka waran iyo xafladan sidii ay ku soo lama sheegi karo ila suuxa wax yar baa dhiban ilaahay waxaan uga mahadinayaa madaxweynaha cusub Puntland isbedelka khayrka qaba ilaahay kii lagu barwaaqay ilaahay ka dhigo ilaahay idinkiisa isagana waa u duceynaa xafladan quruxda badan iyo marwooyinka sharafta leh nagala soo qayb galay aad bay u mahadsanyihiin gobolada dhaadheer ka yimid aad baan u salaamayaa Puntland ha jirto ha joogtaan leeyahay maxaa fariina maxaa tala ah aad madaxweynaha cusub u marsiinaysaa TV-ga caalamiga TV-ga caalamiga madaxweynaha cusub waxa uu marsiinayaa ballamadu qaaday uu yiri inaka caloolo jooga iyo cunugaygu waa isku mid inuu kaga dhab waxaan u hambaliyeynayaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas aad haddaan cawada ka hadlo dareenkayga aad iyo aad baan ugu farxay waa markii ugu horeysay 27 sano ka bacdi aan ka soo qayb galay xaflad loogu dabaaldegayo madaxweyne dalka ama gobolka Puntland waxaan rajaynayaa oo aan leeyahay waxaan leeyahay Cabdiweli Gaasow waad dhaaratay ballan baad qaaday waxaanu rajaynaynaa haddaanu nahay gabdhaha qurba joogta ah in aad ballankii aad qaaday iyo sida aad ku dhaaratay aad u fuliso nin waxaa la yidhi xil qaaday waa nin eed qaaday waan kuu hawoweynahay aniga haddaan hooyooyinka ku nool magaalada Holland aan ahay aad iyo aad baan ugu baahnahay waddankayga inaan ku noqdo halkan waxaa jirta meel waayeelka lagu haayo ma doonayo inaan meeshaasay tagalo waxaan rajaynayaa in aad noqoto kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waayeelkiisa iyo dadka waddanka jooga daryeela ayna ku farxaan daacad u noqda soo u dhaartay u ahaada waxaan rabnaa baahida inaan ka baxno waxaan rabnaa inaan tacliin darrada aanu ka baxno waxaan doonaynaa sidii 1974 loo cirib tiray
analphabetism inaad adna u ciribtirto waan kuu baahannahay waanan kuu hambalyaynayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيقة هاني محي الدين إسماعيل هاني إيركولو هل كان عاو وحان أسوغوني مد حفلة لسوغي مدحوينها بونتلان لغو تاغيريو مدحوين لماذا ومانتي إن عبدولي محمد علي قاس وقبصدي إيوه سوغوتنتي عبد الرحمن فرولي وحانو لين هاي أنو أوران مايو maaragtay waan ku mahadinayaa laakiin waxaan leeyahay waa aan ku duceynayaa xilkana ilaahay ha ku fududeeyo ma aan qiyaasi karo maaragtay shucuurtayda iyo sida aan ugu faraxsanahay iyo waqtiga caawa meeshan aan taaganahay iyo dadka ka soo qayb galayba si qurux badan been u dhacday hambaliyo bismillaahir rahmaanir rahiim anigu Cabdullaahi Maxamuud Gacmay waxaan halkan taaniyad uga dirayaa madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan ku bilaabayaa magacayga Fawzi Maxamuud Maxamed waxaan hambalyo uga dirayaa xagan madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo kii hore oo tagay dhamaantood ummadda reer Puntland meel kasta ay joogaan maanta waxaan joognaa magaalada Indhoofan xalfadda si aad ah ayuu aan ugu dabaaldegnay insha Allah khayr ay ku dhamaanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالida dhamaan meel walba adduunka ku nooshihiin magacaygu waxa weeye Khadra Cabdullaahi Faarax waxaan joogaa wadanka Holland siiba magaalada Eindhoven caawa oo ka dhacayso xafladda loogu dabaaldegayo madaxweynaheena cusub laguna sagootinayo madaxweynaheena hore Cabdiraxmaan Faroole aad iyo aad ayaan Cabdiraxmaan Faroole u mahadsan tahay wixii maaragtay 5 sano oo wadankayaga aad soo hogaaminaysay Cabdiwelina waxaan leeyahay meeshaas ka sii wad ilaahayna kula garab galo rajo weyn baa lagu qabaa waxaan ilaahay ka rajeynaynaa ilmaheena ilmahooda in aad historyga maanta maxaan kuu sheegay sida doorashadeena quruxda badnayd ay maanta historyga ay u galeysay inay adiguna aad historyga u gashid oo waxa waaye mustaqbalka iskoolaadka lagu siiyo maanta waxa aad Soomaaliya inaad hogaamiso Puntland inay Soomaaliya oo dhan ay hogaamiso oo maanta ay curato baan ilaahay ka baryaynaa inay noo gasho historyga ilmahana iskoolka hadhow lagu bari doono iyo taariikhda Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaah xafladda soo abaabishay oo waliba sida qiimaha badan aadka u quruxda badan u soo abaabishay kadib waxaan rabaa aan aad ugu mahadceliyo madaxda dowlad goboleedka Puntland madaxda hadda maaragtay wadanka loo dhiibay mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka Camay waxaan leeyahay waxa la idinka fadhiyaa shaqo aad u culus baa idin taal waa idin ducaynaynaa madaxweynihii hore ee Puntland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxaan leeyahay waxaad qabatay wax weyn waxaad samaysay wax taariikhda baal dahab ka galay oo ummadda Puntland oo dhan maanta ay ku faanayso Afrikana ka galay taariikh aad u muhiim ah Afrika aad bay ugu adag tahay in hogaamiye looga guuleystay hal cod oo waliba la yiri cod baa khasaaray oo si fudud ku qanco marka aad baan uga mahadcelinaynaa wax qabadkiisa aad ka u ballaarnaana aad baan maaragtay u mahadinaynaa xafladuna aad bay u qurux badan tahay si wanaagsan bay u dhacday waan dhammaan waxa weeye ummadda reer Puntland caalamka meel walba ka joogtaan waa salaamaya waa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan dhammaan waxaan ka salaamayaa ummadda reer Puntland iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan anigoo magacayga Cabdinaasir Axmed Maxamuud ku sugan wadanka Holland waxaan rabaa inaan hambalyo u soo jeediyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Professor Cabdiweli Cali Gaas waxaan sidoo kale hambalyo u dirayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ahaa geesi haliyay ah oo aqbalay wixii meeshii ka dhacay doorashada oo dad badanna ma taqaana ay markii hore ku qanacsanay sida wuxuu dhacayaan waxaan leenahay ninkaas geesi buu ahaa baal dahab ka galay Puntland iyo dhammaan Soomaaliya taariikhdeeda waxaan leenahay Cabdiweli waxaan leenahay xilka lagu doortay oo iyo wixii aad ballan qaaday waa inaad ofisaa ilaahayna ha kula garab galo assalaamu calaykum waraxmatullaah